السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيال سودو هذا وصاحبكين عبد الرشيد قنعيه تضبط كان waxaa dib loogu soo laaban doonaa horyaalada kubadda cagta qaaradaasi Yurub haday ahaan lahayd horyaalka Ingiriiska ee Premier League horyaalka Spain ee La Liga iyo waliba horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A horyaalka Serie A markasta wuu ka horeyn jiray horyaalka Ingiriiska iyo kan Isbaanishka iyo kan Jarmalka iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyagu waa لا يعني ولي ميسن قارين هير لمدة للليغا iyo Premier League sababta horyaalka Jarmalka markaad eegto taageerayaasha imaanaya garoonka waa wada buuxa koox kastana waxay leedahay taariikh yani isboorti taariikhi ah Ingiriiska kale tamaad waxa arkaysaa in wax kasta isbedeleen Newcastle oo kale Arab baa gadatay Man City Arab baa gadatay Liverpool Manchester United iyo Arsenal ila America laga leeyahay Chelsea Mareykanka hadda iibsaday يعني كوبادي إنجليز يجينا نكرشوا نقد لكن جرم أساس معه تاريخ iyo maxaa la yiraahdaa wadadii isboortiga Yurub lagu talagalay ama ay ku socotay ay Jarmalka ku socdaan taasna maanta adduunku waa laga tagay hadda Arabba imaadayo saas lacagaha u fardhinaysa horyaalka dalka Talyaanigana markii ay kacsanaayeen hadda Milan Juve iyo Inter iyo Roma iyo Lazio iska daa Bruges iyo Bari li jiray Masinga Bari dadkii hore ahaa jiray Ingiriiska markaa uu dansanaa iyadoo ay socdaan Liverpool iyo Manchester Arsenal iyo Manchester ayaa Shalema Napoli Sinai waxa laga daawan jiray horyaalka Talyaaniga Serie A oo ay ciyaarayaan Masinga Bari iyo nin la oran jiray Signori oo Bologna u ciyaari jiray marka Talyaaniga markasta wuxuu ahaan jiray mid ka horeeya La Liga iyo Serie A laakiin fadeexadii Calciopoli 2006 iyo Juventus ku dhacday kadib Talyaanigu uu damay Isbaanishkii kor ayuu kacay Ingiriiskii hayaa hadda sare u sii kacay hagaag waa xasuus sportigii hore aynu ku bilaawno saaxiibayaal ciyaaro badan ayaa toddobaadkan ka dhici doona Ingiriiska hadii aan ku hormaro Manchester United waxay la ciyaari doontaa kooxda adag ee Brighton waxa wata nin Talyaani oo la yiraahdo De Zerbi dabcan kubadda ay ciyaarayaan iyo qaabka kooxdaas uu soo abaabulayna waa kubad yani another level ah marka Manchester waxa sugaysa ciyaar adag toddobaadkan Liverpool waxay aadi doontaa naadiga Wolves sanadkan saxiix badan ma sameyn macalinkooda way eriyeen macalin cusub ay qaateen kala wareegay galeen hasaatay ciyaartoy waaweyn kooxda wali joogta laakiin saxiix badan kooxda ma aysan sameyn sidoo kale Liverpool waxa ka maqnaan doona Van Dijk oo kabtanka kooxda kabtanka xigeenka Alexander Arnold uu maqnaan doona Liverpool sanadkan waxa la leeyahay waa kooxda la tartami karta horyaalka Ingiriiska naadiga kubadda cagta Manchester City lagu magacaabo City iyada naftigeed kulan adag baa sugaya Sabtida waxayna la ciyaari doontaa naadiga Hammers ee West Ham saddex kulan way badiyeen hal barbardhac ay galeen kaalinta labaad ayayna Tottenham iyo Liverpool isku haystaan laba dhibcood ayayna City ka hoosayaan haddii marka West Ham ka badiso Manchester City iyaga hoggaanka noqon doona Manchester City waxa dib ugu soo laaban doona macalinkooda Pep Ingiriiska waa cadaabay soo rabo ka yeeshtay koobka rabo ka qaaday yani markasta waxa la leeyahay markasta Manchester City iyaga ugu adag inay koobka ku guuleystaan Arsenal toddobaadkan waxay qaabilin doontaa naadiga kubadda cagta waxay la ciyaari doontaa Everton markasta Serie B ka carayeen kooxda Jarmalka ee Hamburg ayaa waxa lagu xasuustaa saddex la ciyaaradii ugu dambeeyay waxay ka badbaadaysaa horyaalka heerka labaad markii dambe way gashay way soo bixi weysay horyaalka afraad hadda maqan yihiin waa Hamburg waa koox haysata Champions League marka Everton sanad kasta way badbaadaysaa laakiin haday gasho Serie B-da horyaalka Ingiriiska waxa laga baqanaa inay soo noqon waayaan kala wareeg badan ayayna galeen Chelsea xaalad xun ayay ku jirtaa sanadkii hore 12aad ayay galeen sanadkan Chelsea waxa loo qiimeynayaa inay geli doonto kaalinta 11aad maadaama kubad wanaagsan ay meesha la imaan dhaawacyadoodu ay saayid yihiin Pochettino uu leeyahay shaxi cindi rasmi ah oo ku dagaaltamo marka Chelsea wali wareer haysta Liverpool oo kaleeto macalin ay wataan Jurgen Klopp waa nin isdabari kara yani wax uu sameyn kara Henderson buu maanta ka hadlay wuxuu yiri Henderson dhawaan buu hadlo wuxuu yiri macalin Klopp iyo maamulka kooxda waxay ii sheegeen inaan iska bixi karo Klopp laakiin wuxuu yiri anigu waxaan ku iri Henderson يعني بوس جوكتو كومون بالان قاعدين كررنا واي ماكليستر Szoboszlai iyo Ryan
endo rag culus baa yimid meesha kala wareeg baa dhaxdii ka dhacay Liverpool loomana balan qaadin karin Henderson inuu yani boos joogta heli karo marka booliskiisa inuu u dagaaltamana odaga diyaar uma ahayn lacagahaas uu iska doontay oo Sacuudiga muusan ku qanacsanayn dhinaca ciyaaraha wararka ugu waaweyn haddii aan raaciyo ciyaaryahankii hore ee naadiga kubadda cagta Juventus Inter Milan iyo naadiga kubadda cagta Barcelona Bayer Leverkusen Bayern Munchen Arturo Vidal wuxuu sheegay in kulamo badan gacanaha looga qabto looga hiiliyay naadiga kubadda cagta Real Madrid wuxuu leeyahay koob badan oo Real Madrid aysan qaadi lahayn ayaa aniga leega danaaniyay gacanahana leey qabto lugahana leey xiray sidaas ayayna koobka ku guuleysteen Barcelona fiska Barca xaalad adag ayay ku jirtaa dabcan waxaana la leeyahay kala wareeg ayay galeen hadday ahaan lahayd mushaaraadka kooxdaas 100 milyan ayay sare uga tageen mushaaraadkii kooxdaas ay yani ugu tala gashay inay ciyaartooyda siiyaan marka Barca xaaladda ku xun bisha January waxa la leeyahay ciyaartooy dhowr ayaa ka bixi doona Manchester City oo kale waxay ka rabaan ninkii odaga ahaa Yamal Messi cusub Balde sidoo kale waa la rabaa maxamed qadar baa hadda kor waxa laga hayaa annaga maana wareerinaysin yaa Balde iyo Hebelow aanu keenaysin hadda Balde City arabta ka waramahay waa weyn ku noqday marka kubadda cagta waxa waaye ciyaaryahan walba la soo jabhadeeyay Cristiano Ronaldo ayaan xasuusanaa maalintii uu bilaabayay haddana waa aragteen odayga ilaa Sacuudiga ku dhaco waxa la leeyahay koox qaada taxta uu ka waa Yurub marka Messi Mareykanku jooga kubaddii waa dhamaatay sida hore ma saaxiibayaal ciyaarahaas ayaa toddobaadkan jira horyaalka Talyaaniga Milan iyo AC Milan iyo naadiga Inter Milan kulan derbi halkaas ka dhici doona derbi de la Milano waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan AC Milan kulmadii ugu dambeeyay waa laga badinayay Inter aad bay u adag yihiin laakiin Milan sanadkan way kula shahay Tonali lacagtiisa 6 nin ku soo gateen Talyaani xa aqli يعني talyaanigu markasta waa kuwa fikiraya yani dadaalkooda iyo qaabka suuqa ay u galayaan oo kaleeto inkastoo xulkooda maanta la leeyahay xaaladda ku xun laakiin talyaaniga markasta waa qoto miiran Juventus iyo Lazio way ciyaari doonaan Jarmalka Bayer Leverkusen iyo Bayern Munchen ayaa hadda ciyaar soo gali doonta ciyaaraya sidoo kaleeto waa Bayern Munchen Bayer Leverkusen ciyaartooda kadib Dortmund bari ay ciyaaraysaa Francisco Paris ay ciyaaraysaa ciyaaro sidaas ay u dhici doonaan bari ayaan falanqeyn doonaa saaxiibayaal kulamada ka hor ee ciyaaraha qaaradaas Yurub waa saaxiibkiin qanciyo oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh